waxaan leeyahay alxamdulilah ala kulli xaal siyaasadda gudaha waxaa ku dhaafayaa doorasho ay ku socota doorashadaas waxay nooga dhigan tahay innaga Somaliland inaan u fariisanayno imtixaankii shahaadiga ahaa waxaan ka barayaa inuu guuleeyo oo doorashadu sidaan jecel lahay ka dhigo sida ay jecel yahay suucan ay noo qabsanto taariikhda dibadda waxaa lagu qiimeeyaa hal jeer cilaaqaadka aad la leedahay dibadda imisa saaxiib baynu leenahay cadow maxaynu leenahay shanta waddan ee adduunyada ugu tagoogtaroon leh ee fiitooda leh ee joogtada ka ah gooraha amniga saaxiib kuma lihin balse waxaynu ku leenahay hal cadow haddaad cadow qura ku leedahay shantaasi caalamka oo dhan hadduu ku ictiraafo food gelin maysid waa China innagaana dooranay ka kaalay gobolkeena aan isweydiinaya saaxiiba maxaynu ku leenahay saaxiib la isku hadlayn karo ku leenahay waa maya waa mid ka baaya jiritaankeenna mid damac ka hayo halkeenna iyo mid nacab dimuqraadiyadeena u wareeg xaggan bariga dhexe carabta Israa'iil Iiraan iyo Turkiga saaxiibaan ku leenahay imaaraadka la saaxiib nahay laakiin iyadoo saaxiib lama aha saaxiib kale aan leenahay ma jirto hadda waxaan soo jeedin lahaa marka xaalku caynkaa yahay aan isqiimayno saan isu qiimayno si dil dhinac uga raaci lahayn aan fargood qabanno waxaynu ku jirnaa cawrta waxaa tahaa xaggu gebi guntu walac war guntaasi walacda ah si aynaan ugu dhicin aan fargood qabanno tana loo baahan yahay in la hadlo ma aha oo la ismaaweeriyo waxaa loo baahan yahay in xaqiiqada lagu soo dhawaado in loo kaco oo loo gunto dalka ayaa loo baahan yahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh